Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay asxaabtayda qaaliga adduunka meel walba aad ka joogtiin. Kusoo dhawaada channelka Riyaa Quruun Channel. Maasha Allah tabaarakallah. Sida u jeediin waxaa inoo wadaa maanta toona kabaab. Sida qurux badan ay ugu soo baxay. Insha Allah haddana sida u sameeyay waxyaalaha ka sameeyay daawasho wanaagsan. Ugu horeyn meesha waxaan ku haystaa baradho 4 xabo waa qiyaastii side u weyneen qiyaas ahayd maasha Allah. qiyaasta waxay ku xiran tahay inta isticmaalaysid inta familka inta cunaysa ku xiran tahay maasha Allah. Ani waa soo qiyaastay biyaan ku soo kariyay biyaha waa soo miiray waxaan diidaa video inuu nagu dheeraado maasha Allah waa soo diyaariyay biyaan ku soo kariyay sidaas ku soo baxday maasha Allah biseel maasha Allah ay soo noqotay hadda waxaa sameynaa qaandan soo qaadana waa jijibinaaya si fiican aan isku dhex gelinaaya insha Allah markii aan soo jijibiyo waxyaalaha aan ku diri doono insha Allah asxaabtayda qaaliga ila socda si fiican aan soo jijibinaa baradhada. maasha Allah asxaabta baradhada waa soo diyaariyay isaga arkayseen maasha Allah inta waxaan ku haystaa 2 basal oo kala nooc ah sanjabiil fresh iyo toon aan soo hoolay intaas ugu horeyn horta ku soo daraya insha Allah ayagana waa isku soo jijibinaaya baradhadan dhex gelinaa insha Allah waxyaalaha kale oo ii dhiman insha Allah asxaabtayda qaaliga daawasho wanaagsan. maasha Allah si fiican soo dhex geliya asxaabtayda qaaliga codku waa ka xiray muhiimadu waxa waaye waxyaalaha isticmaalaa inaan idin sheego spice kad waxa isticmaalayaa carfiska waxaan ku darayaa filfil iyo xawaaji dhudhuub iyo xawaajiyaasha aan hagaajistay lay ku darayaa insha Allah muhiimadu waxa waaye waxaan isticmaalaa inaan idin sheego inta kale laakiin ishiina macalina insha Allah asxaabtayda qaaliga hadda waa kaas xawaajigii aan ku daray filfishin waa ku soo daraysaa arkayseen intaas hadda waxaa dheer cusbo lay ku daraa insha Allah wax kale ma ku daraay waxaa ii dhiman toonadii haddana soo furnaa aan soo hagaajinayaa ila sii socda asxaabtayda qaaliga. meesha waxaan kusoo diyaarsaday 2 xabo oo gasac oo toonada malaayga toonada oo saliida lahayd waa saliida waa ka soo miira insha Allah waxaa soo qaatay alaabtii aan ugu miir lahay caana miirki ama shaax miirki ama shaqshaqi sa u taqaanid maasha Allah waxaan rabaa inaan saliida ugu miiro si fiican saliid waxaan rabaa inaan qallayl aan ka dhigo dufanta dhan iska reeba insha Allah saliida si fiican iskaga reeba insha Allah muhiimadu waxa waaye qallayl inaan ka soo dhigo waa ka saliida xagga ugu miira insha Allah.
toonada waa soo hagaajiyey. Hadda waxaa sameynaa baradhadii iyo qudaartii aan dusha ugu shubaa insha allah. Si fiican isku dhex gelinaa baradhada iyo toonada. Kabacdi waxaan kusoo daraa insha allah wasla arkeena 2 xabo ukun. Ukunta waxaan ka isticmaalaa qaybta oo shaharka ama qaybta guduudka aan ka isticmaalaa insha allah. Xabka waa iska meel iska dhigeynaa. Waxaan kaloo isticmaalayaa warango cornflower aan isticmaalaa insha allah aan ku adkeenayaa si oo saliidda iga raacin insha allah. Hadda waxaan soo qaadanayaa warangada qiyaas 3 qaando camal 4 qaando qiyaastii aan ku shubaa insha allah. maasha allah tabaarakallah si fiican u soo adkeeyay asxaabteeda qaaliga u jeedin ma kala hareyso saliidana ma ka raacayso. Warangada waxay ka caawinay inay ku adkeyso oo qudaartii ukuntii iyo toonadii wax dhan isku ka dhajiso maasha allah tabaarakallah. Haddana saliid dabka soo saarnayna saliida waa dubeynaa wax kale u harin insha allah asxaabteeda qaaliga ila sii socda. maasha allah saliidda way noo soo kululaatay xabadii ugu horeysay size inta saa ka dhigaa insha allah. waa ka weynay kartaa waa ka yareyn kartaa. haddana waa soo duwaa insha allah asxaabteeda qaaliga ila sii socda. maasha allah tabaarakallah intii ugu horeysay waaye hadda aan ku shubay waa soo gadgadiyay fiidiyowga inuu ku dheeraadaan diidaaya. mar walba waxaan ka taxadiraa fiidiyow dheer ana ma jecli inaan ku caajistiin aan diidaa insha allah. wax yar oo gaaban oo fudud oo la fahmi karaa fiican insha allah asxaabta saa ku soo wadaya. ugu dambeyn sida noogu soo baxo waa isla sii soconeynaa waa isla soo arkeynaa. ugu dambeyn soo ku soo baxo maasha allah tabaarakallah carafta lagama sheekeyn karo. baji iyo kabaab camal isku dhex jir camal maasha allah soo carfay guriga dhan qabsaday qurux maasha allah. insha allah barabay hadaa ka heshiin asxaabteeda qaaliga hadii hor u taqaan waba taqaani hadii aad aqaan ka faa'iideyso insha allah afurka miiska dhan uu ku buuxinaa maasha allah. maasha allah san noogu soo baxay asxaabteeda qaaliga haddana waxaa idin leeyahay muuqaalka xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.